adeega waraabkii saddexaad sidaas ayaa lagu daafray 24 wixii marka ka dambeeyana waxaa si fudud loogu isticmaali doonaa adeega moobilada oo waafi marka uu xambaarsan yahay mas-uuliyiintuna aad iyo aad u mahadsan yihiin waa ay fadhiisan karaan iyagoo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu marba caalamku halkuu marayo aynu la tallaabsanayno oo aynu rabno inaynu hiigsano meelaha qaarna runtii aynu inagu kaga horeyno marka loo eego ode waxaan xasuustaa mobile money exchange markii aynu furnay waxay ahayd shirkadii koowaad ee adduunka ee furta adeeg lamida halkaynu ku jirnay halkaynu taaganna ma qalin laguma qorin inaynaan wax qabsan karin waxna la soo bixi karin caawa halbekeena waynu wuxuu yahay digital first oo maaragtay ay tahay markii ugu horreysay laga hirgeliyo regionkan aynu ku noolahay oo Salaam Bank uu ka hirgeliyey maaragtay digital card ku shaqeynaya oo maaragtay mastercard uu la walaaloobay oo markii ugu horreysay regionkan marka haddii berigii hore markaynu isticmaalayna kaarka balastiga ah ATM-ka la gelin jiray POS-ka la dhex gelin jiray hadda waxaa lagu soo kordhiyey inuu kaarkani yahay kii ugu horreeya oo u shaqeynaya NFC technology sidii aynu arkaynay lama gelinayo mastercard-ka ATM-ka POS-ka lama gelinayo keliya ta waxaa la samaynayaa mobilkaaga abka waafi kugu jiro aad la soo degtay ayaa waxaad samaynaysaa mastercard markaad u baahato inaad lacagta la baxdo oo dul saaraysa deedna lacagtii awal hore ilaa kaadna geliya aan kusoo dhigi jirin automatically baad ku soo baxaysa sayidka arkaynay kilibka halkan wuxuu yahay adeegan si guud anoo ka eegayo dhinaca macmiil iyo dhinac khabiir ku takhasusay howlahan si guud wuxuu hoos gelayaa digital payment ama inaad wax ku bixiso qaab electroniga halkii laga qaadan lahaa kaashka horey shirkadaheenu mobile moneyga ay u suurtageliyeen adeegyo kaloo fara badanna oo ama dowlad ama shirkada noqotaba way adeegsadaan marka waxa fududaynaya in iyadoo aan maaragtay qofku u baahan inuu lacag qaato inuu si fudud waxna u iibsado waxna u bixiyo. So Mastercard and Salaam Bank have joined forces to propel Somaliland towards a digital future. This collaboration is not just a step forward, it is a giant leap. So together, we are ensuring that every Somali has the opportunity to unlock the power of secure and convenient digital financial tools. waan hambalyeynaya shirkadda ama banka Salaam Bank ama Telesom iyadoo aad muddo hormood u ahayd muddo badan inoo bilaabay digitalka ama saadka waxaanu wax ku kiibsanayno maantana horumar weyn oo runtii la oran karo waa mucjiso ayay inoo keeneen waan ku hambalyeynayaa Sacuudigu ma ahay anigu bardhowdaan meel kale qabtay wuxuu baad moodaysaa in Hargeysa joogo lacagna ma qaadan kaashna ma qaadan saadku baa ku dhex jiray dabadda saadku baa ku sarifan jiray dabadna waxaad moodaysaa in Hargeysa joogo waxaan u hambalyeynayaa Telesom Group oo ku dhiiratay adeegyadan iyo heshiisyada noocan ee caalamiga ah inay gasho waan ugu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad sidoo kale waxaan ayagana u hambalyeynayaa shirkadda Mastercard ee iyaduna ku dhiiratay inay heshiis noocan oo kale ah la gasho Somaliland iyo shirkadaheena waxyaabihii laga soo sheekeynayo dhan maaragtay inaan bal si practical ah aan isla tijaabino halkan waxaan ku hayaa device-kii loo yaqaanay point of sale-ka kulley badankiinu inaad aragteen baa laga yaabaa oo maaragtay dukaamada wax laga iibsan jiray kanaan hayo waa hotelkan aynu joognay Ambassador device-kiisii waxaan rabaa arrinkii inanta Mastercard ka socotay ay maaragtay ay waday ahaa maaragtay kaarkaaga wadi laawi kartaa laakiin numberkaaga telefoonka mobilkaaga ma ilaawi kartid wakaas hadda telefoonkayga aan dul saaray halkaas transaction ka sameynaya oo daabacaya rasiis marka transaction ku guuleystay hadda waxaan sameeyay waxaan ilaahay baa mahad lacad ugu mahad celinaynaa caawa xafladan aynu isugu wada nimi shirkadda Telesom oo iyadoo aynu marti u nahay
oo soo bandhigtay adeeg cusub oo runtii qaali ah. Telefoonkana waan ku dheganahay. Runtii kaararkaana waan ka yar baqaa oo waxaan isaa amaad meel kaga tagtay. Laakiin haddii ay isugu timin telefoonka dhexdiisii adeeggii laga helayo runtii aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. halkan waxaynu isugu nimi in la daahfuro adeeg casriya oo inoo fududaynaya sidaynu wax u iibino amba u iibsano si aynu lacagta u bixinno amba u helno. waxaan marka hore ku hambalyeynayaa adeegga cusub ee loo baahnay bangiga Salaama, Telesom iyo Mastercard. hambalyo. maanta si aad wax u iibsato inaad safarto uma baahnid, inaad viisa qaadato uma baahnid, inaad kaash qaadato uma baahnid, inaad gurigaagaba ka baxdaba uma baahnid. adigoo gurigaaga iska joogaya waxaad doonto aad iibsan kartaa adoo isticmaalaya platformska sida Wafi, Mastercard oo kale. Wafi iyo Mastercard isku mataaneyntiisa amba digital economy loo guuriyay habkan casriga ah waa la soo wada sheegay oo waxa in waqti uu save gareynayo si dib yar waxna u iibsan karno waxna u iibin karno amba hada goods amba service taasoo saamaxaysa inay lacag badan dalka soo gasho shaqo abuur badan samayso. shandadaada waa ilowdaa waladka yar baa ilowdaa laakiin mobilka lama ilaawan. adeegan wuxuu ku qoonfalan yahay mobilkii oo nimka la qabatinay taasina waxay saamaxaysaa meel kasta inaad si dib yar u adeegin kartid. waladkana laga yaabaa inaad surwaal ku soo bixisid amba suulkaad ku soo bixisid aan meel aad kaga timaadin. waana secure waan soo dhaweynaynaa waana hambalyeynanaa iyo inuu ku baarigno bangiga horumarka ay sameeyeen bangiga iyo shirkadda Telesom iyo Mastercard oo is xambaarsan waana soo dhaweynaynaa.